munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay arrimaha aqoonsiga Somaliland maalgashiga dhaqaale ee ka bannaan Somaliland arrimaha dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada London. munaasabadan oo ay soo abaabushay safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalkan boqortooyada Ingiriiska ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud sidoo kale ergeyga gaarka ah ee wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Dr. Adna Aadan wufuudka kala socota dalkan boqortooyada Ingiriiska xildhibaano ka tirsan baarlamaanka sidoo kale golayaasha deegaanka ee dalka boqortooyada Ingiriiska siyaasiyiin madax bannaan ganacsato iyo badi labeenta Jamhuuriyadda Somaliland ee ku dhaqan dalkan boqortooyada Ingiriiska. ugu horeyn waxaa munaasabada daahfuray wakiilka Somaliland u jooga dalkan boqortooyada Ingiriiska Danjire Cabdi Cabdilaahi waxaana ka mid ahaa ereyadiisi sidan. It gives me a privilege and honor for me to open this event. Let me start to thank all participants, especially dignitaries and the British Somaliland communities. waxaa sharaf weyn ii ah inaan inoo furo kulankeenan oo ay goobjoog ka yihiin dhammaan jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan dalkan boqortooyada Ingiriiska sidoo kale ururada madaxa bannaan siyaasiyiin ka socda baarlamaanka dalkan boqortooyada Ingiriiska golayaasha deegaanka ee magaalooyinka waaweyn ee dalkan boqortooyada Ingiriiska wafdiga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland sidoo kale xubnaha iyo haldoorka jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan dalkan boqortooyada Ingiriiska ayuu yiri Danjire Cabdi Cabdilaahi. wasiirkii hore gaashaandhigga dalka boqortooyada Ingiriiska oo isaguna munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa ku nuuxnuuxsaday Somaliland waxa kaliya ee waqtigan deeqi karaa inay tahay aqoonsi buuxa oo ay beesha caalamka ay u fidiso isagoo arrimaha ka hadlayana waxa ka mid ah ereyadiisi sidan. It's a great privilege to be here this evening. I was a few years ago had the enormous joy of being able to visit Somaliland and see the work that had been done there. So much work by so many people. And we're 30 years on from where so much had to be done and such sacrifices had to be made in order to be able to carve out a country that was able to offer peace, stability and opportunity for so many people. But despite the fact that we're 30 years on, the recognition and the acknowledgement of what those people did. So many people did in a nation coming together against the repression of others. That now needs to be recognized. Somaliland waa dal nabada, waa dal dimuqraadiya, buuxiyay dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa dal. waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta dalkan boqortooyada Ingiriiska iyo guud ahaan caalamku in aanay indhaha ka laaban karin xaqiiqada rasmiga ah ee ka jirta geeska Afrika iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo xaq u leh in ay aqoonsi buuxa ay caalamka ka hesha ayuu yiri wasiirkii hore gaashaandhigga dalkan boqortooyada Ingiriiska Williamson. Let's not forget that Somaliland acts as a beacon of hope, a great example of what can be achieved and what can be done. As chaos reigns around it, Somaliland stands proud as a nation that can deliver so much more. So what we have to do as politicians here in the United Kingdom is to make the arguments, and that is what we're going to do. And while we cannot stand here and promise that we can deliver, what we can promise is that we'll fight with heart and passion in order to put the arguments for recognition of Somaliland and change the agenda and change Britain's view and the government's approach. siyaasiyiinta ganacsatada haldoorka ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dhammaantood hoosta ka xariiqay in fursada maalgashi oo aad u ballaaran ay ka bannaan yihiin dalka Jamhuuriyadda Somaliland. ergeyga gaarka ah ee Somaliland u qaabilsan wadahadalada Soomaaliya Dr. Adna Aadan ayaa iyaduna halka khudbad qiimo leh ka jeedisay. ilaahay nala qabto hooyo hawl badan bay na sugaysaa sanado badan baa ina dhaafay itaalkeena isu geysano doorashooyin baa nagu soo food leh doorashooyinkaas iyayna kala kaxaynan ha isu geysoo dhaweyso aynu gacmaha isqabsano wadan baynu u dagaalamaynaa ummad baynu u dagaalamaynaa xisbi maaha gobol maaha qabiil maaha waa dalkeennii
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo munaasabadan ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada reer Somaliland ee daafaha caalamka in ay muujiyaan midnimo sidoo kalena ay meel uga soo wada jeestaan aqoonsiga dalka Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo waqtigiin adduunyada waxa shaqeeya bulshada ayaa keenta amba guul darro community waa qayb weyn u ka yahay wax walba gaar ahaan community dibaddu waxaan doonayaa inaan dib u emphasize gareeyada mar labaad in Musabbix aanu hayn aqoonsiga Somaliland in Cabdilaahi oo kaliya aan waxba qaban karin in aqoonsiga Somaliland ay ku jirto sheebkiina. munaasabadan ballaaran ee sida weyn loo soo agaasimay ee ka dhacday magaalada London ayaa fanaaniinta Nimco Yaasiin iyo Nuur Daalacay ay ku soo bandhigeen heesa wadani ah oo qiiro geliyay ka soo qaybgalayaashii dalmar warbaahinta qaranka magaalada London.